far waaweyn oo dhiiggeeda ayuu wuxuu ku qoray waan ku jeclahay kaama maarmo waan ku xisi doonaa I love you baby sorry ayuu gidaarkiisa uga buuxiyey waxaad marka hore iga warantaa sida ay wax u dhaceen ee aad u aragtay sheekadu waxa dhacday aniga horta gabadha isku meel baan degnaa daris baan ahayn gabadha aniga waxaan deganaa baloog ugu horeeyaan degnaa iyaduna baloog ugu dambeeya degantahay ilaahu naxariistay gabadhaas jimcihii aniga anoo kubad ku maqan ayaa wax soo jimcihii baan soo laabtay kubadda jimcihii tegey waan soo laabtay waxaan imaaday kowdii habeenimo gurigaygaan imaaday marka waxaan arkay ninkaas oo banaanka istaagsan oo saqaansan oo cirka maraya haye kabacdi wiilkii wuxuu ugu dhahay saacadii wuxuu ugu dhahay guriga inaan tagaan rabaa macnaha banaanka maanta dhan adiga guriga ma joogin markaasaan ku dhahay saaxiib macaan inaku inta badanba islama soconno kuma arkin maxaa dhacay haye markaas wuxuu ugu dhahay waxba maahan maanta waan cabay saana suubiyey waan saxaansanay muxuu suubiyey markaas dagaalka intuu dhicin ka hor weeyaan jimcihii weeyaan sabtidii wax dili rabaa marka jimcihii wuxuu ugu dhahay gurigan tegaya banaanku fadhiya waa gartay gurigii uu tegey gabadha caadi waan isku naqaanaa waan isla sheekaysan jirnay caadi adiga waxaan iskula sheekaysan jirnay caadi daris baan ahay wiilkii u baxay gurigii uu tegey 20 daqiiqo isagoona maqneen ayaa gabadhii ordaysaa ii timaado guriga soo qarqaracday waa galabtii jimcaha galabtii jimcaha haye maalinimada kadib maxaa dhacay kabacdi soo qarqaracday albaabkan ka furay mise gabadhii way oynaysaa haye maxay kugu tiri marka waxaan ku dhahay maxaa dhacay markaasay dhahday kaalay ninkan ma afgaranayo halkan taagan yahay wuxuu rabaa inuu dhaho dharka siib qasab baan kugu fuulayaa qasab baan waxa kugu samaynayaa haddaad isiin weydid amba cunugaagan ka jaraya ambaada isiin haye bacdi waan fiiriyey waan tegey ninkii meesha saaran waan la soo hadlay waan soo kaxeeyey uu soo raacay gurigaygaan keenay biyaan siiyey waan dejiyey cuntaan u kariyey wallahi waan dejiyey aniga laba wiil oo kale xataa meeshii la degnay ma Soomaali baa labada wiil waxa weeye laba wiil Afghanistan weeyaan haye bacdi waan dejiyey waan la hadlay kabacdi ninkii waan ka kari waayey wuxuu taagan yahay inuu gurigayga tegay weeyaan naagteeda anaa qaba haye waa xaaskiisu weeyaan waxaan rabay inaan ii suubiso weeyaan inaan guriga ku laabto weeyaan ayuu taagnaa haye waan u sheegay waxaan ku dhahay saxaafadda halkaas anaa u tegaya lakala soo hadlaaya waxa samaysa ma fiicna anaa bal waxa iyadana dhibkeeda soo fiirinaya barsu haye gabadhii baan u tegey albaabkii iga furtay waxay ugu dhahday cali adi maanta dhibaataysa maanta aragtay ani maalin walban dhibaato ku qabay dhahday si wacan maalin walban guriga intuu igu yimaado uu soo cabo amba guriga ku cabo ayuu jiraa haye qofna uma sheegin boolisna uma dacweyn dadna kuma dacweyn haye marka adiga maxaad samaysay markaas anigana waan la hadlay iyadana waan dejiyey waan u sheekay waan dejiyey waan u sheegay wax ku dhahay ninkani nin fiyow maahan macnaha uu saaran yahay wax samaynaya war ma aha haye marka uu saaran yahay wax samaynaya war ma aha bal markuu fiyow britoole aroornimadeeda anaa ku keenaya britoole wala hadlaysaa haye waa subax aad balamaysaan waa subax sabtiga subax sabtida ahaa haye wiilkii waan kaxeeyey gurigaan geeyey wuu seexday adi sabtii subaxnimadeeda soo kacna markaa haye biyasiyey haddana cuntadii waan u kariyey wuu cunay isagoo markaan aan arkay inuu caadi yahay uu hadda uu ninka fiyow yahay ayaan kaxeeyey waxaan ku dhahay bal orod u tago halkaa wata fadhida jaranjatayduna fadhida wata jaranjata fadhida la hadalo bal raali geliyo madax ka dhunko bal qaladkaaga dul saaro nin ragaatee waxaad ii sheegtaan labadooda guriga ma wada deganaayeen labadooda way wada degnaayeen laakiin guriga iyadaa lahayd isagu dhinac kale u degnaa oo isla qaybaha dhismaha uu ka kooban yahay qayb u jirtaa adi 4 kilomitir 4 kilomitir meel u jirto deganaa haye marka iyadana sharciga u raadinaysay oo macnaha way u dacwanaysay in ninkeeda ay iskuursadaan ay dhinacan doodka u qoraan inay iskuursadaan ay meel wala degi karaan isaga sharci mu haysan bila sharci waa loo diiday laga helay haye
markaasuu baxay uu tegey iyagoo caadi oo isla sheekeysanaya meel oo fadhiyaan dusha sheeda ka fiiriyey ay fadhiyaan marka arkayna isla sheekeysanaya waan ka tegay aniga waa garta waan ka tegey guriga iska tegey cabaar jooga ka baxay magaalada iska tegey guri kale oo saaxiibadayda iska tegey halkaasaan kaga maqnaa fiidkii 22 soo laabtay guriga waan baxay waan seexday 6 subaxnimo bal wax albaabka hore ka furay ma aqaani albaabka isoo qaraacay ma arag guriga aad deganta adiga gabadha gurigeeda ku deganaa gurigayga aan deganahay waxa weeye kuwan ugu horeeya kuwa ugu dambeeya degnaa waan garta soo qaraacay waan furay albaabka ka furay markaasuu nin waxa weeyaan xasan oona sidii shalay ka dara haye marka muxuu kugu yiri markaasuu ii yimaado wuxuu dhahay adiga Soomaaliya adiga wiilka Soomaaliya ha adiga Soomaaliya ha banaanku soo baxay banaanka usoo baxay gacantii qabtay markaasuu dhahay inakeen waa raacay halkii deganaayeen jikadu geeya marka qolkii waxa ay muugeen jikadu geeya haye kadib waxaa arkay ninkii 3 dhalo u saaray 4 dhalo oo digis kaga dhigay oo lugaha iyo qamcaha oo isku gubay oo isku qorqoray magaca gabadha ilaa naxariista yani magaceeda aad isku qoray jirkiisa ku qoray isku qoray ma dhaawac qoyan buu ahaa oo dhiig leh mise wax hore ahayd dhaawac cusub buu ahaa marka isku qoray dadka u shidna xataa oo saarneed mindidii iyo oo saarneed wadku uu saarna 9 buu u tagay halka wax lagu karsado weeyaan 9 bal lambar uu ahaa mindi waa saarneed saas isku qorqoray marka okay xagee marka uga qornaayeen maxaas ku qornaa labada lugood iyo halka camba ugu qornay marka uu waribo sida adiga tootu oo kale isku buuxay haye بعد أحكي دانيو محاكاسية ولكن أنا ما أرتاحها وانشعلا وانسكو قري كمان مارمو يضي ما شعلا مقاساو حند أنا واحد الموضوع مركا إنا بردان تذكلا ماشي إنا دسكي كلا لدقنا ماشي توغانا بردان بالموضوع هيا وأحكي دانيو بالخالة بناك الصبح بناك بشيك سنة بناك عبار واندتشي كوستوان فريسية والله هذا أني لو دي ويلو كلا والله الليني بعد مركو أفرت دقيقة سوريتي أيوه يقول هاي كودي واندي لي إلا هون حرفتو الله يرحمك واندي لك هو بنكسي هيا aniga markaas ma aaminin macnaha wax suurtagalay lama noqon هيا kadib maxaa dhacay gaadi waxa waa aamin waayniyo waska kaftamaysa fariisto markaas uu ugu dhaay wallahi wanda kuuban kasi ilaa uu naxariisto annaga markaas in soo yar aamin rabo ayuu rabin inuu la dagaalamo marka muxuu kula dagaalamayaa wallahi la dagaalamay xataa ma garanayo uu qabtay saaxiibkii ugu dhahay saaxiibkii qabtay rabin inuu la kaco oo horeysan yirido aday baxad amal igu la kaco كمان سكي لا أوسيبتي وكنت فرستي واحد قلنا واحد شيء سحمية مقصود على ها والله وين دلي لابد يبقى خد على عاوي ربها قمعي قبطة وان قبلنا واحد دميدا خد بولسك هو وعي واحد خد ويل بان خد بحصل في ربنا نرون ستاي سدا ويلك وقع عشان هاي أيوه أنت ما قصدك وقع أيوه ربي إنه نجف كذا هيا بعد ويلك خد هاي حبت تيجي نقولك بالكالي نلاقة وبل أنت ستاي بنتي بل نلاقة هيا أنا لا قبتي بوليس شبه نوي ما تمركع. كدي محي سماية بوليسكا. بوليس ما يسوي مادين أنت البوليس سيكون مشكور سراي يسوي مادين أنا عرّي أنا قلت أصلا صوّب بين البنت تاني كنت تا. هيا. وأنا عرّي قلت وأنا ولا كبي حتى ولا أنا كل تجي وفيري نركب عنداري نركب السنة وندر قلت وفيري مساحة كي قودي يديك ساس وصاق البوليس بيو كله. marka ma dhulkay taala mise sariirta dhulkay jiftay ay wax dhaawac oo arki karto indhaha qaban kareen kuma muuqan marka laga reeb dhiiga qolay gidaha soo fiiriyay afta dhinaca gidahana far waaweyn oo dhiigeeda ayuu ku qoray oo ku jeclahay kaama maarmo oo ku xisi doona I love you baby sorry ayuu gidaha soo uga buuxiyay haye inda marka saas kuma mashquulsan marka uu fiiriyo waa gudaha tagay booliskii oo wacay booliskii ambalaas oo wacay isla markiiba soo koray haye fiiriyaan ambalaasta saddex u timaado way fiiriyaan waxda naftu way ka baxday haye adiga dareenkaaga markaas soo noqday aniga markaas niyo shock baan qaaday waan shocksanaa ilaa hadda saxmaa waan shocksanahay hadda waxay balansan kan adi caafimaadka la fiirinayo dadka inay caafimaad qabaan kale هيا بوليسك ما كوريسان adiga
booliska hadda waa ka imaad saakii wareysteen wixii xaqa u sheegay sida hadda kugu sheegay oo u sheegay iyo wixii daawan u sheegay way wareysteen adii 4 saacadood bay haysteen 4 saacadood bay ku wareysanayeen 4 saacadood bay wareysanayeen waxaan galay 9kii waxaan ka soo baxay 12kii waan ka soo baxay haye 3 saac hadallo uu kugu yiri oo aad xasuusan tahay ma jiraan marka laga soo tago in gabadheedu waa dilo uu ku yiri aan hayay ay wuxuu igu dhahay hadda isii deen weydid oo inaan baxsaan rabaa isii deen weydid waxa ku dilaya saaxiibaday amtida ku dilaysa adigana ma badbaadis anigana waxa kuma mashquulin waan qabsan ani waxa maskaxda ma sii galin ani waxa ii cadad inaan arko booliska inay qabtaan aan qolka soo fiirin runtii tayna beentita haddana anigana saamaca bal wax sameeyo ma garanayo walaa waan ka xumahay waa arrin dabcan aad u adag marka qof xaalad noocaas uu goobjoog u ahaa ama uu arkay ehelkiina dhibaatada iyagana waxaan uga tacsiyinayaa dhibka gaaray gabadha adigana waxaan kuu rajaynayaa insha Allah inuu caafimaad ku siiyo boogahaagana uu kuu dhayo insha Allah saaxib ilaahu naxariisto wallahi saaxib ma ilaa wallahi mustaaxan soo jeedas insha Allah wallahi mustaaxan madaxaas ay xanuunaya dibigayga waxa sibaan ahay wallahi insha Allah waxaan kuu rajaynayaa caafimaad naso caafimaadka ka shaqeey hurdo fiican insha Allah hurd قير بدن بنكور جينا إن شاء الله. إن شاء الله سامع وما صلت